safar salaamana ugu keenay. Marka hore waxaan mahad celinayaa marka labaad guddiga fiid SID oo si diiran noogu soo dhaweeyey aeroboortka Kismaayo muddo saacadahan la sugayey. Guddoomiye adiga iyo guddigaagaba aad baan idinku mahad celinaynaa waqtiga aad annaga darteeda u taagnaydeen aeroboortka inaad nagu soo dhaweysaan. Annagu saakaan ka soo baxnay meesha Muqdisho xamar safarkaygii koowaad weeye oo aanu isteedyada ku mari doono insha allah. Kismaayaan ka bilownay. Waxaanu ujeeddada safarkayagu ahaa inaan u kuurgallo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardargeliyo doorashadii si ay waktigii loogu talagalay oo loo asteeyey ay u dhammaato. Waxaan idinka mahad celinaynaa inaad shaqo badan qabateen oo wejigii labaad u gudubteen oo xalay soo dayseen kuraasta qaarkood, horeyna aad u qabateen kuraas kaleeto aad u dhammayseen. Waxaan rajaynayaa insha allahu inaan doorashadu ay si dhaqso ah waktigii loogu talagalay ama wakti u dhow oo inay ku dhammaan doonto. Waa idin mahad celinaynaa. Kolley waa idinla joognaa, waa sheekisanaynaa xaaladaha maaragtay doorashada iyo waxaas oo dhanna waa isla jaangoynaynaa inaan 6 kursi qabashadoodii ku daahfuro aan insha allahu aan idinku nimi oo idinla wadaagno xaaladaha duruufaha ku hareereysan doorashada iyo waxyaabaha caqabadaha jira aan ogaano. Aad baan idinku mahad celinaynaa insha allahu. Intaas wixii dheer fadhi baynu isku wareysanaynaa insha